هلا السلام عليكم قرابة في عنتين سيتهين نبض مياه ما أنت وحاربا أنا وحير إذن كلا هاد قبري ويل بين الله هاد العربة لكن قبلها قاسة أن الله هاد بريها وحيا بدنا سو كردي إن وحيا بدنا أن دينيا iyo sharciyan ba fiicnayn ayaa aragnaa social media lagu faafinayo in laga maarmi maayo marka in laba kalmadood la isdhaho oo waxa la yiri qofka hadaad wanaag farayso way wanaagsan tahay hadaad wanaag fari karto ana wanaag farshaa hadaadan wax wanaagsan soo kordhinayno ana iska aamusta marka ajaladan waxaan rabaa inaan si gaar ah uga hadlo gabdhaha runtii hooyaan ahay gabar dhashay gabarna korsatay ina mana dhashay aad bay ii dhibaysaa fadeexaynta gabdhaha iyo ma aragtay waxyaabaha gabood fallada kursiga faraha badan leh oo meel walba ka dhacaya waxaan rabaa wixii bal aan ka dhigi karo hal qof baan ahay wax badan ba ma samayn karo isbedel badan laakiin wixii aan ka dhigi karo inaan ka dhaho horta aad iyo aad baa u mahadsantihiin inaad aniga oo aanan maaragtay hore idinkugu sii sheegin aad durba 100 qofood ka badan adigu daawanaysaan horta waxaan rabaa inaan idin sheego adduunyada ilaa waa maalmo kooban waaye waxa dhan aan u joognaana wayna lagu tijaabinayaa bini'aadan aan waan qaldamaynaa mar afkeena waxaa ka imaanaya waxyaabo cajiib ah oo aan loogu talagelin marna waanu toosannahay waanu hagaagsannahay hase yeeshee waxaan rabaa horta inaan wax yar sharxo waxaa jira arrimo fara badan baa meesha isku murugsan akhlaaq darro shacab waa jirtaa isbedel shacabna waa u baahannahay oo bulsho ahaan inaan anagu siyaasiyiin ma nahin shaqo kuma lehin gobollada iyo wax naloo kala saaro markay danta runta ah ay timaado saas laajligeed waxaynu dad isku wada dan ah isku wada diir ah isku wada dun ah isku wada dux ah maadaama aan sidaas nahay ona dhaqanadeena iyo waxaynu ana kala dheerayn waxyaabaha qaarkood ee qaladaadka ee faraha badan le markay dhacaan waa inaanu iskala hadalno oon wax in iska niraahno horta waxaan aad uga xumahay gabadhii la faafiyey anigu sheer ma soo dhihin waxeeda sababta waxay tahay wax kasta lama sheer gareeyo wax markaad aad dadka la sii wadaagto aad dadka la sii tusiso oo hor leh wax xal ama aadan samaynine wixii inbaad sii faafisay marka laakiin inaan ka hadla xaq baa u leeyahay oo gabadheydii oo kaleeta ah horta taa aad baan uga xumaaday laakiin gabdhaha waxaan rabaa marka hore intaan arrimaha kale u gelin waxyaaba badan aan rabaa inaan idin kala hadlo laakiin waxaan rabaa gabdhaha inaan idin sheego sawir ii soo dirta iyo kamera ii furta anagu ma doonayno inaan hormuud u noqono anagoo gabdho waaweyna oo dadkii lagu dayanaya ah dagaal ragga ka dhan ah ragga dagaal kule ma jirno anaga ragga dagaal kule ma jirno maxaa yeelay dadku in xun iyo in fiican ba iskula jiraan maaha inaan raggoo dhan xun haddaan dhahno macla aabbayaasheena soo galaya aabbaheena ma xumayn aabbahaa ma xumayn aabbaheed ma xumayn aabbayaasheena ma xumayn saas laajligeed inaan waxa generalization ku samayno oo aan dusha ka wada qabanaa waa laga wanaagsan yahay ma wanaagsana sidaasi taa waa inaan ka waantoonno hase yeeshee gabar yahay waxaad ogaataa marka nin ku dhaho ii soo dir sawir horta waxaad ka dhalatay bulsho adigu aad ceebta u nugushahay laakiin ninka ragga ah aanu ceebo qaban taasina waa xadkii bulshada ku heshiis wixii bulshada ku heshiisay adigu kale waxba kama bedeli karaysid maxaad marka bedeli kartaa waxaad bedeli kartaa adigu inaad is asturto oo adigu maaragtay ada sawirkaaga nin islaameed u dirin taa waa kow idinka iska daaya annaga oo gabdho waaweyna oo ayeeyooyin maanta marayna intaan hooyooyinkii ka gudubnay ayaa maalin walbaba na lagu yiraahdaa sawir ii soo dir example anoo kale 200,000 oo sawir ayaa ku jira google-ka oo aniga leeh qofku magaceega hadduu qoro wuxuu helayaa intaasoo 100 oo sawir wuxuu helayaa kala duwan oo weliba xataa xaaladihii nolosha oo marka mar walba sawirka markii laga qaadayo aan ku jiray sawirro muujinayo qofku helaya
mar waa madoobaha mar qamaan isku ah mar waa qosla mar waa farxa boqol sawir oo heli karaa qofku haddana annagaasaa maalin walbana lagu yidhaahdaa sawirra noo soo dir waa inaad marka ka fiirsataa gabar yar markaad tahay shalay aniga markaan teen age-ka ahaa sawir nin ii soo dir idhahaya ma jirin hooyadayna waana dhinacaas ogama baahnayn waanooyin kalaan uga baahnaa sababtu waxay tahay maba jirinba sawir ii soo diriyo waxaan ii soo dirtaaba maba jirinba sawirada qaarna black and white bay ahaayeen markaan yaraa ruushka meelahaasaa la geyn jiray markaasaa kalar la soo marmarin jiray ilaa barnaamij caadiya mata runtaa iska sheegaynaayo waan iska kaftamaynaa qaarna waxa waaye haddii la isa sawirana footaa la tegi jiray oo laisa sawiri jiray markaa sawir ii soo dir maba jirinba ninkaad sawir siinayso gacantaad ku siinaysa idinka generationkiina waad naga duwan tihiin waxaa haysataan kaamerooyin casri ah iyo dhammaan wixii miidiya ahaa ama warbaahin ahaa gacantaada ku jiraan ninkan gacantiisa ku jiraan dadku isku aqli maaha isku garaad ma aha gabadhan aday ku aamintay astur iyo waxaas ma gartaan tii laakiin arrimahan intay socdeen iigu cajiibka badnaa waxay ahayd gabar magaalada muqdisho joogto ayaa hadda ka hore ila soo xiriirtay caawinaad iyo talooyin dhinaca waxaagay weydiisanaysa nolosha gabadhaas mar walba qalbigayga waa ku soo dhacdaa siiba markii gabadhii hadda sawiradeeda gabadhii yarayd ee quruxda badnayd hadda sawiradeeda la faafinaya aad bay gabadhaasi calooshayda igu soo dhacdaa dib baa u raadiyey xalay whatsappkayga ka raadiyey aad uma soo helin waan ku guuldaraystay horta gabadhii hadday maqlayso ay nooshaa inay ila soo hadashaan jecelahay gabadhaasi suicidal bay ahayd waxay rabtay inay nafta iska qaado arrin baa idin sheegaya yay nafta iskaga qaadaysaa marka waay ay nafta iskaga qaadaysaa gabadhaas yar xamaray ku nooleed markii ugu dambaysa waana muddo hadda koobo 3 bilood ma dhamaynta ka soo wareegtay nin ayada qaba oo ay hal gabar u dhashay miyay igu tiri mise hal wiil adigu hal canug oo hayso ayaa iyadoo jiifta oo gogasheedii huruda intuu maryihii gogashii wixii ay hugsaneed ka qaaday oo ka fiiqay buu sawirra ka qaaday sawiradiina naaga kale uu shukaansanayo u diray naagihiina waa qaadeen oo adduun oo dhan bay wareejiyeen hadda waa nin qaba kama hadlayno nin la sheekaysta kama hadlayno waa nin qaba qaawiyey oo sawiray gabadhaas anees in person ila hadashay maalintaa waxaan kala talin karaan kala taliyey dib baan u ballanay maalin kale haddana ismaqalnay laakiin maalin saddexaad imaan soo noqon aad baana gabadha uga walwalsanaa tusaale aan soo qaatay idinku marka waxaad ka hadlaysaan nin halkan kaaga soo baxay fudkaaga soo yiri sidii faranfar oo ku yiri waa ku jecelahay waa iga dhex baxday waa iga yeeshay nimanka hadalkooda waa garanaynaa oo sawir ii soo dirkiro ood u dirto qalad yar iyo weynba waa la galaa qof ceebka saliimay meesha ma jiro laakiin qaladka marka aad yaqiinsato inuu qalad ahaa waxani waa inaad dib dambe ugu laaban ood ka waantowdo waxa ku hor yaallaa ee hortaada ka muuqdaana waa inaad ka waantowdo ayadana haddii marka ninka ku qaba ay ka suurtagelayso inuu inta ku qaawiyo ay possible tahay dee nimankii oo dhan baa wax qaawinaa kama wadno laakiin nin gabar qaba ilaan way dhacdo waanu aragnee nin gabarkii uu qabay qaawiyey ee sawire ayaanu haynaaya haddii taasi ay suurtagal tahay maxaad u malaynaysaa ama aad ka filaysaa ninaan waxba kuugu darayn oo ajnabi ay kala tihiin horta taa waa inaad xisaabta ku darsataan gabdhihiina yaryarka ah fudaydka iska dhaaftaan ta labaad waxaa idiin sheegayaa ma qofkii u socday cantoobo yaroo xilli yaroo kooban iyo macaasi iyo wax noocaas mase u socday guriya mustaqbal qofka guriya mustaqbal hadduu u socdo maba ku qasbaaya wax ii soo dirna kuma dhahaayo haddaad diri weydana gafurka kuu tuuri maayo barnaamijaa jira aan maalin dhaweeta sameeyey oo aan ku sharxaayay maya iyo awooddeeda barnaamijkaas gabdhihiinna wixii awoodo inaad daabataan baan jeclaan lahaa wuxuu kuu sharxayaa maya inaad tiraahdo awoodda ay gacantaada gelinayso de maxaa maya leedahay wax alla iyo waxaan ku anfacayno dhan baad maya leedahay ya oraad gabardha yaryaraa tihiin wakti idan cayrsanaya ma jiro ubax soo baxayaa tihiin
quruxdii waddankaa tihiin mustaqbalkii dalkaa tihiin dadkan wada barbaxay ee wada barakacay ee qofba meel ku dayacan ayaa idin eeganaya berri midkiinaba meeluu ka soo baxaya ma garanayno mar unbuu noqon doonaa si unbuu noqon doonaa waxa laga yaabaa waddankaana madax ka noqotaan waxa laga yaabaa macallimiinta adduunka ugu sarreyso oo soomaalida wuxuu dhigaya inaad noqotaan gabdho idinka adin la hadlaaya nin lama hadlaayo raggaan haddii lala hadlay haddaan lala hadlayn waa isku mid waxayna haystaan dhaqan isgarab taagay hadday qaldan yihiin inay sax yihiin hadday saxan yihiin inay sax yihiin idinka dhaqankaas isgarab taaga ma haysataan waa inaa ogaataan farqiga kala duwanaanshaha adiga iyo walaalkaaga kula dhashay oo guriga kaala yimid waa inaa yaqiinsataan wixii run ah ee indhihiina ka hor muuqdo cidna ku eedi maysaan waxna ka bedeli ma karno idinka iska daay annaga hooyooyinkaa waxba ka bedeli karaynin dhaqanka noocaasa laakiin waa inaa og tihiin bosishankiina iyo meelaha aad taagantihiin waa inaa og tihiin haddii ceebta inay idin qabato idinku ay u fududihiin waa inaad totalmenta ceeb oo dhan ka dheeraataan ood iska daysaan ceeb oo dhan okay dhalinyaradu waa shukaansataa waa haasaawaan waa isjeclaadaan laakiin waxaa idiin sheegayaa jacaylka qudhiisa heer buu leeyahay naftaada wax badan bay kuu sheegaysaa aan dan u wada ahayn ninkaanaa rabtaa hebel waa qurxan yahay hebel waa isku dhacsan yahay hebel kanuu yahay hebel kanuu ka dhacay hebel waa balaaya ka dhacday hebel reer xaagan hebel wasiir hebelaa dhalay hebel maxay ahayd toone waxaa dhashay naagtii balaayada ka dhacday oo caanka ahayd hebel kana ahayd aniga ha aan dhala haddaan doono ina musuweeliyaa dhasho canuga hadday doonto ha aaminina sawirna ha u dirina waa ugu diraysaan sawir maba idinku waxaa jira wax laysku leeyahay wax laysku lahayn iskuma lihidiin inaad sawir dirtaan waxaad isku leedihiin inaad sheekaysataan bes that's it waa dhammaanta social media waxyaabo badan oo suurtageliya waxyaabo badan ayuu suurtageliya wuxuu suurtageliyey dadkii inay isdhex qaadaan jaantaa rogan inay noqoto haddii shimbiruhu ay shimbirba shimbirkeeda la duulaysay haddaba la isku dhex qasmay social media wuxuu suurtageliyey shimbiraan shimbirkaagi ahayn inuu ku soo raadsado adiguna midaan midkaagi ahayn inaad la duusho wuxuu suurtageliyey qof xanuunsanaya oo alla ya rasuul u baahan oo in quraan reerkiisu saartaan u baahan oo in dhakhtar lala raadiyo u baahan oo psychological problems qaba oo asaga dhanba in wax laga qabto howl laga qabto u baahan inuu hoosta ku soo geliyo oo saaxiibkaala dhigo social mediaha ayaa baraha bulshada ayaa suurtageliya teleefoonadan kaan haddan idinkala hadlaayo oo aan sariirteeda la dul saarana xataa kursi ma fadhiyo sariirteeda la dul saarana ayaa suurtageliya wax badan oon hore suurtagal u ahayn suurtagal u ah Soomaali waxaa jira afkaa waxaa naga qabsa Soomaalida hore dad fiican ay ahaayeen dad fiican ma ahayn Soomaalidu weligood dhaqankoodu noocaan u ahaa wuxuu ahaa dhaqan ceebta ay qaban ogtahay qofka dumarka ah wuxuu ahaa dhaqan isgarab taaga dambiilaha weligood saanay ahaayeen idagaysta waanu soo noolayn annaga naga sii hordad baan noolaa laakiin maxay ka farqigu maxay yahay shalay waxaa jiray xilliyadii annagu aan gabdhaha yaryar ahayn waxaa jiray rag lagu sheekaysto xaafadaha oo la yiraaho ninkaas maqaayadu xaaskiisa kaga sheekeeya maradiisa iyo gogashiisa buu maqaayadaha kaga sheekeeya waa jireen hadda kuway dhaleen waaya kuwa hadda sawirada intaad u dirtaan idinka idinku ceebaynaya sawirada aad u dirteen Soomaali hore fiicneed iyo mid dambe xul ma jirto Soomaalidu isku wada mid dhaqanka sidii u soo wada guuraan xabad kama bedelin diintii waxba kama bedelin just cimaamada iyo qamiisyo iyo xijaabkan aan hadda xiranahay isla loo xirtaan baranee wax aan ka bedelna male ilaahay mana leeyahay oo runta ma tahay inaan isu sheegnaa mise beenaan isku camirnaa ninkii raggii shalay waxaa jira ragga la magac ah ya oo xaasaskooda heblo markii aan sariirta tagno sidan ay dhahdaa way reentaa kanay samaysaa waa cabaadaa nimankii saas ahaa akhlaaq darrada ilaa heerkaas qabay
kuwoodii le oo dhaleen oo yaryar le waa kuwa hadda sawirada idinka qaadaya idinka oo fiidiyoyada idinka duubaya nothing changed just waxaa isbedela kuwaas ma haysanin social media iyo ma aynan haysanin telefoonka casriga oo hadda idinka haysatiin ma haysan ilaahay baa runta nagu jecel kuwii le oo yaryar le hadda joogo sanjigoodii le waaye ugxantoodii waaye waa abuurkoodii waaye marka markii horena maahan in la aamino haddana maahan in la aamino waxaan ogahay oon xasuustaa xaafadaha ka dhex dhici jiray nin xaaskiisii inta uga sheekeeyey rag kale loo dhigay gar loo dhigay oo gobol loo fariistay gabadha reerkeedii soo fariisteen oo isaga reerkiisii soo fariistay oo naagtaada xaad ugu faaqida maqaayad heblow la yar maxaad maqaayad hebla dhexdeeda naagtaada ugu faaqidaysa marka laba arrin aan kala saarno anu rag difaaci maayo oo wax la difaacaba waa ka farabateen laakiin inaanan u cindaqaadin oonan madaxa ka wada qaban oo aanan dhihin way wada xun yihiin oo way wada sidan oo way wada duubayaan wada duubi maayaan laakiin adiga mugga horeba wax lagaa duubaba ha ka dhiginba available haba isku diyaarin in wax lagaa duubo maxaa aso ha xumaada ninkan ama ha fiicnaada waxuu duuba ha waayaba okay waxaaga haddaa haysato jirkaaga ile adaa leh adaa asturan markuu ninku ku dhaho isku kay soo qaawi ee ii soo duub ninkaas guurkaa ma rabo haddii aad u haysato inuu guurkaa rabo guur ma kaa rabo waa beenti guur ma kaa rabo guurka kaa raba korkaaga oon ku asturnaado uu ku faraxsanaanaya inuu sugu ku faraxsanaanaya mana dhararayo karkabana kuma jirto ilaa naar iyo maaragtay aynimo u la cararayaa ninkaasi ma qaba waa inaa intaas garataan gabdhow hooyo ahaan ayaan idinla hadlayaa idinlama hadlayo maanta wariye ahaan idinlama hadlayo psychologist ahaan idinlama hadlayo maxay tan counselor ahaan waxaasoo dhan idinlama hadlayo waxaa idinla hadlaya hooyo ahaan maadaama hooyo ahaan idinla hadlayo si ninkii wanaagsanaana aan loo ajaafaynin ila raggii ma wada xumee kii xumaana aan fursad loo siinin oo ceelka uu rabo inuu ka biyo cabo aan biyaha oonan uga dhaansan waa inaad idinku garataan inaad marka horeba aan sawir laydinka qaadeen sawir maa rabtaa haa sugo anigiyoo dhanaaba soo socdee soo is aroosi mayno haa dee walaalo aan isu sugna hadday anigiyoo dhanoo mudh ah baaba ku dhinac seexan doona halkaasuu shir ku xiranya arrimaheenii kala nooga hadal adduunka wax laga sheekaystaaba badan ninku ku dhaha waa ku aroosa yaa seenu isu aroosna reerkeena meega doonanaysaa meeqaad iga bixinaysaa meherka meeqaad awoodda howl kalood ku mashquulisaan ragga aaba jiree maxaa cawradiina loo duubayaaba idinkuna aad u bixinaysaan fursaddaas ninkaasi waxaaba laga rabaaba 2,000 oo su'aalood maa weydiisid ninka 2,000 oo su'aalood asoo xiiqsan ha kaa tago habeenkaa seexdo alla yaa nafte oo baxsada ya asoo baxsada oo xiiqsan ha kaa tage maa runta u sheegtiin ya waxay ogaanaysaan hadda dowlad waa qabnaa of course waa qabnaa qaladaad badanaa iska jira weli macnaha dowladnimadeena maynan istaagin sal ma nihin sharci ma leh waddanka gudihiisana sharci ma leh dibadiisana sharci ma leh annagiina ma nihin dad u bartay inuu sharcigu difaaco shuruucda inay ilaaliso marka xataa adoo yurub ku nool baa mid kaloo yurub ku nool video kaa duuba asad adigana dacweey maysid shibaadka leedahay sababtu waxay tahay maba aada u barinba ninka inaa sharciga marsiiso uma baranba uma baran sharci ku protect garay uma baran abootadaa sharci ma soo protect garay habartaa sharci soo ilaaliya ma soo helin oo waddankay ka timid iyadoo qaxa oo cagla habaaba adiga meelahaana imaata adiga markaa meelahaan imaata adigana sharci oo ku ilaaliya oo ku difaaca adoo haysta oo UK oo kala degan Sweden oo kala degan Norway oo kala degan Finland oo kala degan oo sharci leh baadan haddana sharcigii aaminsanayno kumaba qanacsanido wax sharci soo difaacaba reerkiina kama mid ah asaa video lagaa duuba markaasaa meel walba la marina one report oo booliiska u bixisa kugu filan revenge
revenge born aa la dhahaa revenge born aa sharcigaas la dhahaa dadka ingiriiska ila jooga barta revenge born boonkii oo macsida ahaa aarsiga macsida aa la dhahaa macsidii aarsiga ayaa la yidhaha marka video lagaa duubo ama sawir lagaa qaado oo babliga lagaa dhigo xataa haddaad qalad gasho anu maba raba inaad qalad gashaane oyba dhacdo oo shaydaan kaa saa'id caleeyo ooba wixii lagaa duubo ood aragta in babliga lagaa dhigo hooyadii buu ka caanamaalayaa waa in aad sharciga marsiiso itus revenge bona la dhahaa magaciisa xataa idiin sheegaya UK haddaa joogto laakiin ani Scandinavia iyo ma aqaano kolley magacuu u leeyahay ilaa iyo America waa illegal waxa lagaa duubay lama soo dhigi karo public laba dambi la isugu kaa dari maayo weli ilaahay toobadiis waa kuu furan tahay ninaa isu qaawisa inaad ka soo laabato salaadaada tukato ilaahay oo cafi mar dambe uma noqonayo aad tara but that is a law waa sharci adoo marka meel sharci la jooga turki xataa haddaa joogto waa inaa sharciga marsiiso waa inaa barataan soomaaliya isla nahay saan u lahayd war ilmihiya kufsi lagu dhameeyey waxaas ma jiraan criminal is a criminal dambiile qofka markaa noqdo waa dambiile ma barotagaraynayso protection ma ku siin kartid for Soomaali waaye daraadiis ma ku siin kartid ta kale oo raba inaan ka hadlo waxa waaye waalidiinta ilmaha waalidiinta dhalay kuwa Soomaaliya joogaan sidaasaa waalidkeen noo ilaashan jiray ilaashta ilmihiina ninaha ku aaminina kuwa jooga wadamadaana ka daaya ilmaha aad baraysaan nin walba ee hulaaban ee Soomaaliya aad leedihiin waa adeer iyo waa abti ka dhaafa taasi waxay sahashay in caruurtiinu ay baylaha noqdaan cidlaaninka uu ka kufsado asoo Soomaaliya because adaa u sheegay canugu waa innocent waxba ma garta canugaan dambe ma garan adaa waxaa u sheegtay inuu ninkaani abti iyo adeer yahay ninkaani inuu family yahay adaa u sheegay iska daa niman Soomaaliyeed kuwa kale ee islaamka ah ee kala ah ayaad ku maxay ahaato adeer no abti ma jiraan meeshaan abti run ahaa jiro adeerna adeer run ahaa jiro kuwaasina sida lagu isku arka aaba aqaana aniga ilmana waa ku korsada laakiin nimankan Soomaaliyeed ee nin walbaaba aad caruurta u baraysaan markay yaryar yihiin abti hebelaaw adeer hebelaaw aan waxba u ahayn ka dhaafa taasi waxay sahashay canugii haddii si kasta la yeelo waxaad gudbo sexual assault lagu sameeyo inaanu canuga kuu sheegin because abti iyo adeer shaqadii ay ka qabahayeen asaga inay tahay u haystaa canuga yarka ee miskiinka ee innocent-ga ah waalidiinta taas waxa kuu soo haray gabdhaha meel kasta ku ooyaya haddii gabar Soomaaliyeed ay soo ooyday ooyintii ugu badnayd horta anaa soo qofka bini'aadamka waxa wanaagsan markuu sheekaynayo inuu xaqiiqda ku sheekayo waana sheekayo anay idinka waa isbaranay sanadkii hore isbaranay wixii markaas ka horreey aaminada xagga ka hadasha aaminada xagga taagan aaminada codka waxda idin ah laakiin waa isbaranay hadda haddii qof bini'aadana oo gabar Soomaaliyeed ay ooyday ooyintii ugu badneed horta anaa ooyay amar idin sheegay maantana ma ooyo haayo gabdhaha marka hadda ooyaya waxaan rabaa inaan idin sheego xaalka kala goosgoosta inta aad dhiban tihiin hadal badan ha hadlina ma xamili kartaan qaniiyadu markay kugu dhagan tahay oo xanuunka uu ku haayo hadal fara badan ma geli kartid haddaad gashidna emotional noqonaysaa depressed tahay waa isku dhex daadsan tahay wax walbaa kaa suuragala ooyintaada luuqa ku ooy tartiib soo ooy laakiin markaad ilmaha soo korsato ood soo dhammaysato hawshaada yaa hawsha soo kala goosta hooyooyinka hadda ay possible ka tahay inay dhibaatada ku jiraan la haya hawsha soo kala goosta
marka ay xanuunka kugu dhagan yahay ilmahaaga yaryar yihiin aad baanbara bedelayso barafka la qubcubuc leedahay dhexdiisa wax kuu gargaaraa aanay jiran kii kaa dhalay kugu jeesjeesayo kugu dayacay waxba kugu siinaynin soomaalidii kalena dee barnaamijka hortiisaan kusoo bilaabay hadalka lifekan hortiisa haddaad ila joogtay ba ay adiga le waxsaarkaaga u fududahay oo cid kuu gargaaraysa iyo cid wax ku dhehaysa iyo cid adiga maxay ahaytoonay gacal kuu ah jirin hadalka ha iska badinin hadalka ha iska badinin calooshaa ku maran dhabarkaad ka jaban tahay xilligaas waa dhibaataysanta calooshaada ma garat oo dadkana soo wacay oo naga daaya wixii baad naga goynaysaan calooshaadayaa bannaanka tal marka iska daaya waxaas iska dhaafa markaa laakiin ilmaha soo korsato soo qurux badnaato soomaali foolxun ma jiro meeshaan dhibka lee dadka foolxumo ka dhigo yaa shaxshaxley ku soo noqotid ilmihii soo korsatay ama certain age soo gaarsiisay ilmo aad baambar u xiraysay ama baambarka furayso aanay ahayn ilaahay uu garabkaaga galay adkaysi ku soo gudubtay ha ooyinku ma dhowhayo waa ooye ma ahane waxaad u ooye maxaa kaa gala u ooye waa soo ooye jiifan ku ooye joogan ku ooye anoo shaqayhayaan ooye anoo war akhraayo news akhrinayo oo bbcda in war layga sugaayo ana ooye aniga ooyena isoo dhaafta xilliyaanan ooyin male meesha faan ma jiro barnaamijkaas ka soo gabagabaynaa 800 aad daawanayso laakiin ma aqaan saan yeela ma aqaan wixii go-ohaya waxaa samaynaysiin iska aamuso xilligaas ha ooyina social media ha soo gelina marka aad dhiban tahay oo aad jilcan tahay oo dhabarka ka jaban tahay oo caruurta ka hoos ooyeyso dadkuna ku garowsan maayaan kii ku dayacay oo ilmaha kugu dayacana joos iyo qosol ka qaada jariidku ka qoslaya ma ahayn inuu cadow kuu noqdo xabiib buu ku ahaa oo caruurtaada aabaheed buu laakiin doqonnimadiisa haddii ay siisay in uu adiga uu caruurta kugu dayaco kuguna waxnana kugu siinin ooyintaada waxba ka bedeli mayso xaasidnimadiisa marka xilligaas ha ooyin adkayso ilmahaaga korso adigana wax isbar waxaa adi kala ballamayaa waxa waaye ina adiga meesha iska qaad adiga inaa wax isbarto qaasatan gabdhaha qurbaha jooga oo yurub iyo ameerika ku nool waxaa haysataan fursad aad ciil walba kaga baxdaan ogow waxa lagaa raba waxa waa qalbigii aad noloshaada wax kaga bedeli lahayd inaad la timaadid go-aan adag iyo determination inaad gaartid labadaas haddaa isku hesho ooyin ma u baahneed yuu doonid inaa ooyin ma ciinsato ooyinta tartiib ay kaaga soo hadleen sida aaminoo kale ka sheekayhee taariikhdaada adoon hal ilina indhaha ku soo istaagan adaa isgaarsiin kara horumarka gabar yahay adaa horumarka iska wadan ahaanaan burburnay saas la-ajliga shacab ahaanaan burburnay ciyaar ma aha wax ciyaar looga soo kabta ma aha wadan burburay dadku waxay moodaan siyaasad keliya inay tahay siyaasad keliya ma aha ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ku dhaartay inaana siyaasad keliya ahayn wax naga burburay dad ahaanaan burburnay bulsho ahaanaan burburnay qalbi ahaanaan burburnay qabkii ayaa naga jabay intaas markay dhacday qoys burburkuna waa imaaday waa inaa aqbashaa wixii alla uu kuu xukmay waa inaa aqbashaa sidaan geerida u aqbalno waa inaa u aqbashaa haddii qoysku kaa burbura laakiin waxaa la rabaa qofka aniga idinla hadlaayo theory idin kalama hadlaayo wax aan buugaa ka soo aqriya maaha this is happened to me waa wax aniga igu dhacay ayaa idin kala hadlaya inta aan idiin sheegay oo waraysyadii hore ee sanadkii hore baxa ku sheegana ciddada foodeeda ma dhame ilaahay subxaana wa tacaala baan ku dhaartay inaan ciddada foodeeda dhamayn ooyin gabar soomaaliyeed hadday ooysana anaa ugu badnaa ooyinta ugu badnaydaan ooya haddana hadda ma ooyo haayo waxaa ogaataa waxaa lagaa rabaa inaad adkaysato ilmahaaga korsato nolosha waxay leedahay muhiimad priority ay nolosha leedahay prioritiskaas nolosha ay leedahay inaad u kala qaybsato maxaa priority ah inaad noolaato maxaa kaloo priority ah inaadan diintaada ka bixin ilaahay diin la-aanna ma dhigo waa xanaaqa markaan xanaaqana ilaahayna waa ku xanaaqa ayaa uumay kabacdina diintaan ka baxa waxaas af maha
diintaada haysato dhaqankaaga haysato akhlaaqdaada haysato asluubtaada haysato ilmahaaga dhexda u xirato korsato haddaad ooyeysano luuqa ku oydo social mediaada kusoo ooyin ilaa ilmahiyaa weli yaryare ooyintana celima kartida adkayso maalinta dhabarku kuu kabmo maalinta labadaada lugood kuu adkaadaan maalinta aad tabar yeelato maalinta aad ciilka ka baxdo maalinta kuwii yaryaraa ee baambarada cafaayadaha loo wada xiraayo ee lagugu ciilaayo oo korkaaga taagan aa aragto maalinta ay iskuullada ka soo wada baxaan maalinta jaamacadaha ay kuu soo wada dhammeeyaan maalinta aad adigana markaas intaad alxamdulilah tiraaho hooyo ilmo korsanaysoo dhiboon anaa aqaane 10 jeer habeenka soo kacdaaya aadan habeenka soo kacayno saas dhinaca markaad dhulka u dhigto aad iska hurdayso ilaa iyo xilligayada salaada iyo xillida aad kici lahayd maalinta aad hurdo ka dharagto quruxdaada iyo wajigaaga iyo dheemankaaga